بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم subax wanaagsan axad wanaagsan soo dhawaada walaalahayga qaaliga meel kasta adduunyada daafeeda ka joogtaan horta waxaan leeyahay ummadda islaamka meel kasta adduunyada joogto inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun wallahi wax kale oon dhihi karo ma jirto waayo waxaan u dhahayaa inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun dadkii Soomaalida ahaa waxaa lagala dagaalamayaa boqolkiiba boqol Soomaali waa muslim ereygaas ayaa rabaa in la dabargooyo horta anoo ilaa shalay waqti man haysan anoo arkay arrinta coldoon oo aad uga xun wallahi oo aad uga qalbi xun baan hadda jas waxaan arkay farxiyo cabsiyo oo coldoon weeraraysa gabdhaha janaalada aan isku xidhanayaan ku arkay si kale umaan arkin laana waqti ma baan haynin ka bacdina ii sheegeen coldoon weerarayso dhahayso gabdhaha la kufsaday maad ka hadashid hadii ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم walaalay farxiyo cabsiye horta adii mid baan ku leh waxa riyo haday dub leeyihiin dabadooda ku qarsan lahaayeen meeshan waxa laga hadlayay qabiil maaha qadiyadna ma ah meeshan waxa laga hadlayay waa diinta islaamka ayaa loo soo dhigtay daafacayna laa ilaaha illa allah muhammadar rasuulullah farxiyo cabsiyana mid baan leeyahay shacabka islaamka ah oo saxda ana mid baan leeyahay meel kasta joogan oo Soomaaliyeed dawladana mid baan leeyahay iba maqli maayaan haday lacag codkaygu midun xataa wasiir gaaro coldoonna waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka soo daayo cadowga gacanta u galay waa cadow walaalahayga qaaliga ah meeshan qabiil ma taagna durba waxaan u jeedaa arrinta inaan la qabiileynayo meeshan qabiil ma yaalo Soomaaliyeed qabiilku waa kala idinku kala baabi'iyay ee diintiini lagu baabi'inayo waayo waxaan ku horeynayaa arrinta shacabka Soomaaliyeed ilmaan anagu la kala soo ornay wadankii oo la soo tahriimay dhulkan aan la imaanay waxaan dhahaynay dhul gaalaan la imaanay oo maxay haydaanay ii sheegeen dambi baan qabnaa oo waan ilmahayaga anagaas maxay daan isugu wacan dunuubtan la soo galay waayo waxaan keenay dhul calaashan aan dhulkoodii ahayn ilmuhu wax kasta sameeyaan anaga waalid anaga dambiga leh ilaahay dalkeena san hanooga dhigo saa dalkii laftigiisii baa ilmihii ku haray ee joogay ee maanta dalka wax iyo diinta wax u qaban lahaa ayaa maxay hadaan loogu dhigayaa iskuuladii waxyaabo dhaqan xumo ah markaasa naag ayadaba dad la soo dirsaday baa waxay ku dhahaysaa Umar bin Khadaab baasan Umar bin Khadaab wax aliye wuxuu yidhi waxba kama oga hadduu Umar bin Khadaab wuxuu yidhi ay wax ku og tahay farxiyo cabsiye xaqiiqada markaan ka hadalo anu uma hadlayo qabiil dadka xanuunsan ee u hadli doona calaashan dhihi doona gabadhan saasay tiri raxiima saasay tiri kama hadlayo anigu qabiil meeshan ma yaal arrin qabiil meeshan ma khusayso waa diinteeni waxaan daafacayna damiir isku yeela saa qabiil waa wax halka ina dhigay qabiil waa waxa ilmaheena loogu dhigayo diin gaalo qabiil waa waxa dadkeena kala baabi'iyay farxiyo cabsiye haday diin iyo iimaan leedahay iyadoo kaniisada intay la soo kulanto ayada afkeeda iska fashilisay ayada afkeeda wax walba ka fashilisay lama soo dirsadeen oo looma soo dirsadeen dadkeeda okay marka aan horta hadda farxiyo cabsiye kuma sii fogaanayo sababtoo oo ah waxyaabo hal eray ay ku saxsan tahay waan arkay wax badan ay ku khaldan tahay gabadhan in la soo dirsaday oo la arkayna way jirtaa hal ka eray baan iyada ka sheegay arrinteeda waa halka ay leedahay ninku xaaskiisa hadduu qasbo oo maxay haydaanay ii sheegeen oo xoog wax kaga qaato waa kufsi horta walaalay macaanay anu waxaan ku dhihi lahaa hadii way aanu ugu jawaabay horta fiidiyahan maanta farxiyo cabsiye oo calaashan ay sheekada caldoon iyadu soo dhex gashaan oo rabay inaan arrinta caldoon ka hadlo laakiin aan la kulmay fiidiya ay caldoon kaga hadlayso nin iyo naagis qabay horta isma xoogaan gabadhan maalintuu ninku soo guursaday ee ay u noqotay sawjad oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala u xalaaleeyay loo nikaaxay buu sheeko kufsi la horta wada ka baxday erayga kufsi anigu macnihiisa waan qaldanaan karaa waxaan u aqaanaa gabadh nin aanan muxrin u ahayn oo ka calaashan ajaanibka ihi oo qasbay uu dhibaateeyay uu farxumeeyay baan u aqaanaa taasi waa taas talabaad ee kale labada qof ee maxay heedaanay isqaba oo maxay heedaanay isku sawjeen xadgudub iskuma lihin xoogna iskuma lihin adduunyadu waa basar ixtiraam iyo kala dambeyn baa la isku leeyahay wax xoog leedahay ma jirto gabadha calaashan taasna horta waxaan maleynayaa mid doqon oo kale oo aan calaashan inuu banaanka u soo saaray laakiin wax xoog leedahay horta meesha ma taala halkaasna uga baxaya arrinta farxiyo cabsiye okay
shacabka Soomaaliyeed maanta qurbaan joognaa awlaadeennii baan la soo orodnay meelahan aan la imaanay qurbaha marka ay dhibaato noqdaan oo ilmihii ama ay nagu xumaadaan ama se ay ilmihii dad kale inaga raacaan ama se ilmihii aan dhaqankoodii xoogay xajin weyno waxaa la dhihi jiray kaalay bal hooyo wadankii soo arag wadankii ayaan soo tusi jirnay iyo beeyada iyo bulshada iyo masaajidada iyo dhaqanka wanaagsan iyo diinteena suubanan haysano oo la soo tusi jiray laakiin maanta meel la soo tusi maba jirto anu taasaan aaminsanahay way maxaan soo tusaynaa hooyooyinka dalkii joogna I don't know way hurdaan baan u malaynayaa mise gaalnimadan ay la rabaan awlaadooda loogu dhigayo maxay hidaanay iskuulada annaga Soomaali ka awow dad muslim aan nahay ma aha inay ka aamusaan hooyooyinka ilmahooda loogu dhigayo maxaydan iskuulada iyo dugsiyada wax loogu dhigaya waa inay ilmahooda ka foojignaadaan hooyo calaashan waxa la idinka maxay haydaanay faa'iideysanay waxa weeyaan ilmahaaga lagu dhoofin baahidaad ka bixi war baahida adduunyo midda aakhira ka daran baahida adduunyo midda aakhira ayaa ka daran ee ilmihiina ilaashada oo ilmihiina yaan baahi rabbi subxaanahu wa tacaala idin hayo ilaahay subxaanahu wa tacaala idin waasiciyo arsaaqada idina waasicin doone yaan la idinka ka faa'iideysan baan leeyahay taas ilmihiina ka warhaya coldoonna waa geesi ilaahay hala jiro culimada badankeedu way ka wada hadleen coldoon arrintiisana way ka hadleen arrinta fatxiyo cabsiyana way ka hadleen dib loogu noqon maayo taas ma fahanteen war arrintan sidani waxaan inama qoseeyo dhaqankeenii la baabi'inayo ha laga joogo miyaa coldoon lagu haystaa coldoon aniga hooyaday may dhalin aabahayna muu dhalin laakiin waxba iima dhaamo sababtoo waana walaal Soomaaliyeed waa nin geesi ah oo sharaf leh oo diintiisa iyo akhlaaqdiisa ilaalinaya ilmihiisana mustaqbal u rabo wax soo bartay culimada qaar badan ka hadlay shalay markii aad ku xidhayseen ninka qoomuluudka ah ya oo iskuulka abaarsa dhigayay markaad ku haysateen Soomaaliyay ee lagu xiray coldoon oo la dhahayay maxay haydaanay khaasatan waliba dadka halka ka soo jeeda ayaan si toos ah u hadlaya shalay markii coldoon lagu haystay maxay haydaanay dhowr sano ka hor bay ahayd arrintaas maxaa afaaraha ku galiyay oo lagu xiray coldoon oo maxay danay god u galiseen nin gaala oo qoomuluud ah shalay sheekh aadan seeraar muxuu ka hadlayay sheekh barbaraawi sorry sheekh barbaraawi arrintuu soo bandhigay maxay ahayd hadday ahayd bil ma gaadhin ka hor markaan dhageysanaya xadiiskiisa nin Soomaali ah oo diinta islaamka ku dhashay oo 4 nin oo Soomaali Hargeysa dhexdeeda ku qaba hal guri halkee ma qabitaan baa jiro nin 4 nin haddii aad maqli jirteen xaaska ilaahay subxaanahu wa tacaala 4 dumar ragga u baneeyay anigu ma aan dhihini intaan soo dhaqdhaqlaynin sheekh barbaraawi dib ugu laabtay xadiiskiisii nin Soomaali ah oo 4 rag guri ku wada qabo xasbi allahu wa nimcal wakiil waxani wax laga aamusi kara ma aha adduunkana waxaad ugu tala gasheen inuu ilaahay cadhadiisu ayna gilgishoonano ilaahay adduunka nagu rogo laakiin يوم القيامة قف والبوح ربي سبحانه وتعالى أقرأ يوحو صوش قيستي وحنا نحين ما قاضي ما نسميناي مركا وحنا نلاقي هاي صومالية إن يردمير إسكو يالا دين تيننا إلهي سبحانه وتعالى إساقا إذنكو إيغاي يا إلهي سبحانه وتعالى إساقا إذنكو إيغاي qaabkaad u dhaqmaysaan waxaad samaynaysaan arrin kasta oo maxay haydaan diinta islaamka lagu baabi'inayaan haddaad qabiilaysaan waxa qabiil la dhaho yawm alqiyaama ku badbaadinaya ma jirto cadaabka rabbi subxaana wa tacaala wax kaa badbaadinaya ma jirto marka waxaan leenahay culimadeena ha kacaan sababtoo oo ah dowladda Somaliland dad bay u dhaaratay shacab bay u dhaaratay waxa la shaqeeyo oo meel walba u jooga culimada diinta iyo waqaafka qaabilsan waa inay arrintan ka hadlaan war adduunyadii aakhiradiina adduunyaha ha ku maxay hadaan ha ku bedelanina ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada ya ragga madaxda isku sheegaya oo u dhaartay meel kasta ay joogaanba Soomaali meel kasta ay joogaan isku sheegaya inay madax yihiin kitaabkii aad shalay ku dhaarateen oo gacanta saarteen oo ugu dhaarateen dalkan iyo diintan waxaan leeyahay adduunyadani waxay tahay male waayo aakhira adduunyad ka raacdeen laakiin tiini markay noqoto soo lagama yaabo kutubkaad gacanta saarteen inuu ilaahay gacmihii aad kitaabka saarteen intuu mucjiso idinka ka rido sida fircoon meydkiina dhulka laga dhaqaajin waayo oo meydkiinu adduunka yaalo ya adduunyada calaashan dadka kale soo jiilalka soo socday ay ugu waana qaataan sa ilaahay horta quraankiisa kuma u sheegin laakiin mucjiso ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiisa uu ka ridi karaa
waayo kitaabkii aad shalay ku dhaarateen ayaad intaad dhex keerteen kufaar aad dalkii keenteen baad marka la dhaho maxaa waxaan loo samaynayaa qof damiir la dhahana dadkii aad maxaydana god ugu ridaysaan ma naag gaalo ah ya oo kufaar ah oo xumaan faafinayso ayaad maanta sida hala inaga daayo nin muslim ah oo daahir ah oo dalkiisii jooga oo maxay haydaanay dalkii hooyo uu ku dhashay iyo diintiisii daafacaya aad god ugu rideen ilaahay waxba kama qarsoona dee ya allah subxaanahu watacaala wax ka qarsooni ma jirto ilaahay waa qafuura raxiim ilaahay waa qafuura raxiim qof kastoo baraaciyo oo isdhaho in bulshada iska dhaadhiciyo meel soo fadhiista oo maxaydaana isdhaho ii sheegeen ha lagu dhaho waa qof magac leh seed ku caanbaxdaana aakhiro caanbax ma yaallo aakhiro caanbax ma yaallo waxaa kaaga dambeeya waa cadaab iyo dheecaanka dabada kasii daysan afka lagugu shubo ya kuwa gaaladeed maanta u doodaysid ya oo iyagoo dalkii iyo dadkii baabi'inaya aad maxay haydaanay u xidhaysaan dadka muslimiinta ah halka lagu cadaabo iyo ka dheecaanka ka soo dhacaya wasaqda ka soo dhacda babiye sharaab laydinka dhigi doona laydin waraabin doona yowm alqiyaama marka ma rabi cadhadu inay intan igala sii taraaraxdo wallaahi haddii jirkayga la saro xabad dhiiga igama soo tibqaay sababta oo ah diintii islaamka inta la dhibaateeyo oo maxaydanay dadkii bulshadii la baabi'inayo oo diintoodii iyo maxaydanay culturekoodii calaashaan la rabo in adduunka laga tirtiro ba haddana sheekadii qabiil la soo gelinayo maxaydanay laleeyahay haddana dad calaashaan kuu dooda waa ree hebel waxaasi ma jirto war waxaasi ma jirto diinta islaamku waa laa ilaaha ila allah maxamedan rasuulallah iyo maxaydanay ina walaaleeyey hala daafacdo ummad yahay diintiina shacab iyo hooyooyinka jooga meel kastoy joogaan soomaaliya mandiqad kastoy degan yihiin awlaadiina badbaadsada ilaahay idin badbaadiyo diintiinana daafacda oo badbaadsada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu